السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعنو ونكسن داوديال meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay geyiga Soomaaliya wararka degdega oo aan idin hayana waxa qayb ka noqon doona ugaaska guud ee beesha Ciise oo diiday inuu dib u dhigo xeerka buugga Ciise kulamadii ugu dambeeyay ugaaska lagu qancin lahaa oo fashilmay jabhada hubeysan oo taageersan beesha Ciise oo lagu arkay deegaanka Ceelgaal Somaliland oo ay aragtay xaaladdu inay faraha ka baxday iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee xeerka buugga Ciise ku saabsan ayaan faahfaahin kaaga hayaa waxaan kale ku soo gudbin doonaa booliiska Somaliland oo heegan ka galay magaalada Saylac waxaana albaabada la iskugu dhuftay laba kamid ah hoteelada ay leeyihiin beesha Ciise kuwaas oo lagu soo bandhigi lahaa xeerka buugga Ciise hadaba dhacdooyinkii ugu dambeeyay maxay salka ku hayaan faahfaahinta ayaan ku soo gudbin doonaa qodobada kale waxa qayb ka noqon doona ciidanka difaaca waqooyi bari oo heegan maanta ka galay banaanka magaalada Ceergaabo iyo warar sheegaya in dagaal halkaas uu ka qarxay qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaan saaxiibayaal idin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada adeeta markii kugu horeysayna ku soo biri daraja media waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo aan mar walba halkan ku daabacnay ee muuqaalkan aad daawanaysa like saar aragtidaadana qaybta commentiga inaga dhiibo adoo ka aragti dhiibanaya sida uu aragtid yaa xaq u leh in buugga xeerka Ciise ay soo bandhigaan masamaroonka mise Ciisaha waa maasantiin qodobkan ugu horeeya ayaan ku bilaabayaa ugaaska guud ee beesha Ciise ayaa odayaal dhaqameed erga ah wuxuu si cad ugu sheegay in haba yaraatee aan dib loo dhigi doonin xeerka buugga Ciise oo 15 bishan ama 20 bishan lagu soo bandhigi doono magaalada Saylac waa go'aankii ugu adkaa oo uu qaato ugaaska guud ee beesha Ciise tan oo god ku sii ridaysa rajadii laga qabay in mar uu la soo gabagabeeyo khilaafka ka dhashay xeerka buugga Ciise iyo in Ciisuhu ay dib u dhigaan arrimahan ay dabada ka riixayaan Cabdiraxmaan Cirro madaxweynaha Somaliland ayaa erga u diray ugaaska guud waxayna kula kulmeen dalka Djibouti maadaama dhawaan aan idin sheegay in ugaasku uu ka baxay Saylac waxaana la sheegay in kulamadii ugu dambeeyay ay ku soo dhamaadeen fashil isagoo ugaasku uu ku adkaystay in xeerka buugga Ciise uu yahay mid ay qaramada midoobay aqoonsan tahay oo aysan ku jirin wax ka hor imaanaya bulshada iyo dhaqanka wada deegaanka lana soo bandhigi doono marna kama tanaasuli doono inaan soo bandhigno xeerka buugga Ciise oo ah dhaqan ay leeyihiin beesha Ciise weyne kaasi oo si weyn looga yaqaano geyiga Soomaaliya laga bilaabo Itoobiya Raas Casayr ilaa Raas Kamboni meel walba ay Soomaalidu degto ma garanaya sababta ay samaroonku u diidan yihiin in xeerkan aan soo bandhigno laakiin waxaan qaadaynaa tallaabooyin dheeraad ah oo aan kula dagaalamayno kana hor istaagayno cid walba isku dayda inay arrinkan isristaag ku sameeyso ayuu yiri ugaaska guud ee beesha Ciise oo wajigiisa xanaaq badan ay ka muuqatay odayaashii ergada ka ahaa Cabdiraxmaan Cirro ayaa dib ugu laabtay magaalada Hargeysa warkaas ayayna la wadaageen Cabdiraxmaan Cirro wuxuuna Cirro si weyn uga xanaaqay hadalka ugaaska isagoo sheegay inuu qaadi doono tallaabooyin dheeraad ah hadaba beesha Ciise xaq ma u leedahay in iyada kaliya ay soo bandhigto xeerka buugga Ciise hadaba aan dib ku xasuusiyo dhacday 2024 bishii May 17keedii magaalada Saylac ee gobolka Salal ama magaalada Saylac ee gobolka Awdal hadba sida u taqaanid waxa ka dhacay kulan gaar oo u dhaxeeyay ismada dhaqanka Samaroon iyo kuwa Ciise barigaasi waxa la isku afgartay in xeerka buugga Ciise si wada jir ah loo soo bandhigo laakiin laga saaro turxaan bixinna lagu sameeyo lagana saaro waxyaabaha la isleeyahay waxay ka hor imaan karaan diinta suubanee Islaamka iyo wada deganaanshaha Samaroonka iyo Ciisaha kulankaasi si afgarad ah ayuu ku soo dhamaaday laakiin dib beesha Samaroon way isgadisay oo ballantigu ay ka baxday waxaana ay keentay beesha Ciise inay taa ka xanaaqdo oo ay ugu dambeyn tiraahdo 2025 waan soo bandhigaynaa xeerka buugga Ciise hadda waxa laga cabsi qabaa hadii aan si degdeg ah wax looga qaban xaajooyinka aan soo carabaabay inay wax badan isbedeli karaan oo gacan ka hadal u dhici doono mudaharaadkii ka dhacay magaalada Boorama oo ay ku dhinteen 22 ruux ayaa lagu eedeynaya in beesha Ciise ay sababteeda lahayd sababtana waxa lagu tilmaamay in Ciisuhu ay diideen in xeerkan ay dib u dhigaan markii Somaliland arrinka ay fasaxday hadda waxa laga cabsi qabaa rabshado inay ka bilowdaan magaalooyin ay kamid tahay Ceelgaal iyo sidoo kale Saylac waxaana sidoo kale laga cabsi qabaa hadii rabshadahan ay sii socdaan inay saameyn ku yeelan doonaan wada deganaanshaha Ciisaha iyo gudubirsaha
xalka ugu dambeeya ee labada dhinac ayay dad badan aaminsan yihiin inuu ku jiro in wada hadal iyo wada xaajood xaaladda lagu dhammeeyo oo is-afgarad xaaladda lagu soo afjaro. laakiin beesha ciise waxa ay leedahay inta aan la is-afgaran ka hor waa in lasoo bandhigo xeerka buugga ciise, taasi oo rajada god ku sii ridaysa. dadka kale ee arrimahan la socda sidoo kale waxay leeyihiin samaroonku xaq ayay u leeyihiin in ay dib eegis ku sameeyaan xeerkan oo wax badan ay ka tirsanayaan. tusaale, maxay yihiin waxa ay samaroonku tirsanayaan? bal haddaan adiga ku weydiiyo qaybta commentiga ku reeb, laakiin dulmar yar aan kuu sameeyo. beesha samaroon waxay diidan tahay buugga xeerka ciise qodobada ku jira qaar in beesha ciise uu siinayo deegaanada kale ah saylac, boorama, ceelgaal iyo sidoo kale lughaye. deegaano kale oo fara badan oo ay ka mid yihiin deegaanada dhaca xeebaha ayay sidoo kale beesha samaroon qaadan doontaa. waxaa sidaasi lamida jirtay aragtiyo kale oo ay soo jeediyeen qaar ka mida ururo isku xilqaamay inay xaaladan dejiyaan, kuwaasoo labada dhinac u kala dabqaadayay islamarkaana lahaa deegaanadu waa ay fara badan yihiin si nabad ah loo wada dego. xogta la helayo waxay tilmaamaysaa in dhowrkii saacee lasoo dhaafay ay jireen aragtiyo la xidhiira in beesha ciise ay si weyn horta uga fakarto inay xeerkan soo bandhigaan. laakiin waxaa la leeyahay deegaano kale oo ay ka mid yihiin deegaanada dhaca waqooyiga magaalada lughaye ayaa sidaas si lamida laysku hayaa, oo la leeyahay deegaano fara badan ayaa ay qaadanaysaa beesha ciise. xogta la helayo sidoo kale waxay tilmaamaysaa in toddobaadkii lasoo dhaafay cabdiraxmaan ciro uu odayaasha dhaqanka ciisaha uu u sheegay in ay isdejiyaan oo ay xaaladda qabuujiyaan si wada hadal iyo wada xaajood xaaladda loogu dhammeeyo. laakiin waxaan ogaanay in beesha ciise ay warkaasi diiday, iyada oo xogta la helayo ay tilmaamayso in beesha ciise ay diiday in haba yaraatee dhulkooda ay ka tanaasulaan. waxay ku soo kordha saaxiibayaal waynu arki doonaa. isla wararka haddaan ka dhex bixin saylac wararka laga helayana waxay tilmaamayaan in toddobaadkii lasoo dhaafay si weyn loo adkeeyey amniga iyo sidoo kale xasiloonida deegaanada ay ka mid yihiin saylac iyo lughaye. 48 saac ee lasoo dhaafay magaalo xeebeedka gobolka awdal ee lughaye ayaa si weyn loo adkeeyey, iyada oo xogta la helaya ay tilmaamayso in amnigu uu qayb ka yahay qodobo dhowr ah oo dhinacyadu ay hore ugu heshiiyeen waa ciisaha iyo samaroonke, laakiin markii dambe laysku afgaran waayey. hotel ku yaala magaalada saylac ayaa sidaasi lamid ah ciidanka biliiska Somaliland ay la wareegeen, waxayna ka cabsi qabaan in lagu soo bandhigo xeerka buugga ciise oo xilligan muran xoog leh uu ka taagan yahay. saraakiil sarsare oo aan la hadalnay ayaa waxay tilmaameen in toddobaadkii lasoo dhaafay si weyn loo adkeeyey amniga lughaye iyo ceelgaal, halka ciidamo booliis ah oo dheeraad ah oo laga keenay awdal iyo sidoo kale deegaano kale lagu kordhiyey ciidamadii hore u joogay magaalada saylac. hoteelada ugu waaweyn halkaasna ay la wareegeen. sababta ugu weyn ee arrintan sababtay ayaa lagu sheegay inay tahay kadib markii beelaha halkaasi wadadegaa ay ku heshiin waayeen arrimo la xidhiira dhulka iyo sidoo kale xeerka buugga ciise. mulkiilayaasha hoteelada ugu waaweyn magaalada saylac ayaa sidoo kale lagu amray in haba yaraatee aysan samayn karin wax dhaqdhaqaaq ah oo ay Somaliland ka warqabin, sida inay shirar jaraa'id qabtaan, in xeerka buugga ciise la soo bandhigo, in odayaal ay ku shiraan ama ay seexdaan, in odayaal ay deegaan ka dhigtaan iyo waxyaabo lacayn ah ayaa laga mamnuucay labada hotel ugu waaweyn magaalada saylac ee gobolka awdal. arrintani waxay dabcan u muuqataa inay tahay caburin xoog leh oo lagu sameeyay beesha ciise. weliba aan ku xasuusiyo magaalada sidaas la leeyahay waa magaaladii ay deganaayeen beesha ciise oo xudunta u ahayd. ciidamo maleeshiyaad ah oo beesha ciise ka tirsan ayaa la soo warinayaa inay arrinkan ka caroodeen, waxaana laga cabsi qabaa saacad walba dagaal baaxad weyn oo halkaasi ka dhaca. saraakiil sarsare oo ka tirsan Somaliland waxay tilmaameen inaysan xilligan wadin wax caburin ah, laakiin haddii la isku dayo in lagu xadgudbo qawaaniinta iyo sharciyada ay qaadi doonaan tallaabo dheeraad ah, iyada oo xogta la helayana ay tilmaamayso in saacadba saacadda ka dambaysa laga cabsi qabo dagaalo baaxadoodu ay weyn yihiin oo ka dhaca gobolka Salel, gaar ahaan Saylac iyo Lughaye. haddii xaaladdu ay sidan ku sii socoto, dad badan waxay aaminsan yihiin inay arrimahan oo kale faraha ka bixi karaan,
isku dhacyo ciidanna la arki karo iyadoo xasaradihii ka taagnaa Boorama iyo Awdalna ilaa hadda aan xal loo helin walow caqabado ay jiraan haddana waxaa jira waan ay Somaliland wado kuwaas oo ay doonayso in xaaladda lagu qaboojiyo gobolka Awdal xilligan waxaa isbedel xataa lagu sameeyay mas'uuliyiinta maamulada saraakiishii ciidamada talisyadii booliiska waxaana sidaas si lamid la sheegay in la qaadi doono tallaabooyin dheeraad ah oo lagaga hortagayo cid walba oo loo arko in ay caqabad ku yihiin nabadda iyo xasiloonida gobolka Awdal gaar ahaan Saylac iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada qodobkeena ugu dambeeyana wararka laga helayo gobolka Sanaag ayaa waxay tilmaamayaan in dhowrkii saac ee la soo dhaafay si weyn loo dareemay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay bilaabeen ciidanka waqooyi bari jihooyinka kala duwan ee magaalada Ceergaabo ayaa si weyn looga dareemay dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ciidanka biliiska maamulka waqooyi bari iyo kuwa militariga inay weerar qaadaan saacadda ka dambaysa waa waxa ugu weyn oo xilligan laga cabsi qabo inay dhinacyadu gooda istaraan Somaliland ayaa labadii bilood ee la soo dhaafay hubkii ugu tirada badnaa waxa ay ku daabushay magaalada la yiraahdo Ceergaabo halkaas oo si weyn looga dareemay dhaqdhaqaaqyo ciidan toddobaadyadii la soo dhaafayna sidaas oo kale ciidanka militariga maamulka waqooyi bari ayaa heegan buuxa la geliyay kuwaas oo la sheegay in heegankoodu uu ku saabsan yahay sidii loo sugi lahaa nabadgelyada iyo xasiloonida Ceergaabo waxaa hareereeyay boqolaal ciidamo ah oo ka tirsan militariga sida gaarka u tababaran kuwaas oo la sheegay in ay gaaf wareegayaan banaanka magaalada waxaana markaa ka dambaysa la arkayaa ciidamo militari ah oo ka tirsan kuwa waqooyi bari kuwaas oo la sheegay in ay doonayaan inay gacan bir ah ku qabtaan magaalada laba sargaal oo ka tirsan militariga waqooyi bari waxay tilmaameen in ujeedadooda ugu weyn ay tahay in ay adkeeyaan amniga Ceergaabo oo ay ka difaacaan cid walba oo soo weerarta laakiin hadalku kaawa uu ka duwan yahay oo waxa la arkayaa wax ka duwan wixii hore loo arkay oo ah in Ceergaabo ay dagaal gasho taas oo la sheegay inay xaaladda ka sii dari doonto isla markaana ay god ku sii ridi doonto militariga Somaliland waxay sheegeen inaysan xilligan cidna duulaan ku ahayn laakiin hadii la isku dayo in weerar la soo qaado ay qaadi doonaan tallaabo degdeg ah oo arrimahaas oo dhan looga jawaabayo dadka deegaanka magaalada Ceergaabana waxay sheegeen inay si weyn uga cabsi qabaan in ay xaaladdu faraha ka baxdo oo la arko isku dhacyo ciidan oo aan waxba laga qaban karin taas oo la sheegay inay xaaladda god kale ku sii ridi karto hadii aan si degdeg ah wax looga qaban qodobada aan soo carabaabay gudaha saaxiibayaal wararkeena intaas ay ku dhan yihiin haday tahay markii kuugu horeysay nagu soo biir oo subscribe Daraja Media waxaad la socon doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno aragtidaada qaybta commentiga waxaad kaga dhiibataa yaa xaq u leh inay Ceergaabo ama Saylac ku soo bandhigaan xeerka buugga Ciise taa awood ma u leeyihiin waa inoo kulan dambe ee nabadgelyo